waxaan aad u salaamayaa waftiga ballaaran oo hogaaminayo murashaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo si aan loo kala hadhin maanta loo soo dhoweeyey. waxaan halkan idinka sheegayaa dadweynaha gobolka togdheer iyo waftigaba inaan ilaa xalayto burco lagu kala seexan oo soo dhoweyntaasi ahayd mid waagu u beriyey. soo dhoweyntii ugu qiimaha badneed ee loo sameeyo murashax madaxweyne oo gobolka togdheer yimi taasi waxay muujinaysaa miisaanka ballaaran ee uu xisbiga wadani gobolka togdheer ku leeyahay degmo kasta iyo deegaan kasta. kelmadna waxaan ka odhanayaa haddii ilaahay ka dhigayo qolada kulmiye madaxweyne tartamay oo ahaa guddoomiye jimciyadda sooyaal ayaa nin helay. dabadeedna ninkii helay baa waxaa u yimi ninkii cumar asqal odhan jiray reer togdheere oo markaa yara xanuunsanaya u yimi. wuxuu ku yidhi waar guddoomiye waxaan ku weydiiyey meeshan laguu dhiibay waan xanuunsanayaa dibadda ma iga diri karaysaa oo dhakhtar dabadeed baan doonayaa. dabadeedna wuxuu yidhi maya. oo haddaa nooli aan burco ku taga maysiin karaysaa? wuxuu yidhi maya. oo wax maanta lagu qadeeye ma haysaa buu yidhi. markaasuu yidhi maya. oo haddaa maxaad ku falaysay buu yidhi guddoomiyennimadeeda. waar haddaydinaan dalka waxba ka qaban karayn kulmiyow oo sixirbarra la dagaalami kari weydeen oo biyo wax ka qaban kari weydeen oo jablehel 2010kii baa lagu dhintay abaartii maantana waa lagu dhintay. waa 7 sannadood islaam baa qorshahaa samaysan kari lahayd. haddii aa waxba qaban kari weydeen waar 10,500 buu marayaayo dadkii maciishadii baa ku bahalaysee ruug caddaadda weeya ayaannu u doonaynaa. kiina waannu soo sharaxnay waa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro. codkuna halkaasuu yaallaa. ku hungoobe nimankii halkan haddii ilaahay ka dhigayo calamada iyo biraha isla dabagelayey. guushuna waa waddani sidaasay inoo tahay.